بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داوديال meel kasto hawada iga daawanaysan ba salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa markale barnaamijkeena doorka haweenka iyo waxtarka dumarkaba eed insha Allah ta'ala waqtiyadan kala socotaan TV-ga International-ka Somali Channel. Daawadayaal barnaamijkan waa maalka saadin daadihiina sida caadi ahayd. طبعا waxaan kaga hadlaa barnaamijka doorka haweenka wax qabadka haweenka Soomaaliyeed ee ku abtirsan Soomaaliga dunida meel kasta joogan gaar ahaan reer UK. haddaba daawadayaal maanta waxaanu ka hadlaynaa hidiya dhaqanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed quruxdiisa iyo dhaqankii Soomaalidu ay lahaan jirtay iyo waxyaabihii hore ay cuntada ku cuni jireen Soomaalida dhaqanka waxyaabaha aynu isticmaali jirnay oo imika reer Yurub aynu noqonay aynu ka faano ama aynu garanaynba macnihiisu waxa yahay iyo dhaqanka Soomaalidu qayb intee leeg buu ka qaatay bulshada Soomaalida iyo sidoo u sii lumaya insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa maanta haddaba inaynu Soomaalida iyo bar haddaba waxaynu ku dhaqan kala lahayn iyo caadadaan u lahayn aynu isticmaali jirnay inaan maanta bal dib u soo nooleysino aynu dadka u sheegno caruuraha yar ee dhalanaya iyo dadka Soomaali hablaha Soomaalida ku dhashay wadankan iyo dhalinyaradana la ogeysiyo dhaqanka Soomaalida si qiimo u leeyahay bal haddaba daawadayaal maanta barnaamijka waxay gala qayb qaadanaya gabdho aad iyo aad u fara badan dhalinyaro caruur waxay gala qayb qaadanaya marka ugu horeysa barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka dumarkaba gabdhaha Soomaaliyeed ee la magacaabay Somali Mother International oo muddo dheer ku jiray wax qabadkooda muujinayay insha Allah ta'ala mar labaadkan barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka dumarkaba aan ku cusmay ay ugu horeyso qaali beerlula oo iyadu ah isu sheegi doonto waxay qabato ka sheegi doonto ururka insha Allah ta'ala iyo shukri dalbaas iyo luul maxamed iyo saacdiye sheekh muuse iyo faadimo maxamuud iyo waliba anis maxamed oo ka dhicin maanta inay yaro dhalinyaro maanta halkan idin sii deynaya gabay Soomaaliya akhrin doona insha Allah ta'ala iyo suhuur Cabdallah Yuusuf oo iyaduna gabadh Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo maanta iyaduna qayb libax barnaamijka insha Allah ta'ala ka qaadanaysa haddaba daawadayaal waan wada garanaynaa hidiyo dhaqan baynu leenahay qof walba dhaqankiisa hidiisa adduunka ugu jecel yahay inuu muujiyana aad iyo aad buu jecel yahay laakiin virus wadankan aan ku noolnahay iyo cimiladan aan ku noolnahay dhibaatooyin badan baynu haysaa dad baa dhaqankii garanayeen macnihiisu wuxuu yahay waxyaabahan maanta hor yaalo dhan waxa la sharaxaya gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta si fiican qayb wax barnaamijka uga qaadan insha Allah ta'ala ilaa xaqii cuntadeenu gaalina maanta reer Seyla cuni jireen ama reer Awdal insha Allah ta'ala haddaba waxaan doonayaa bal haddaba intaan barnaamijka gudagali inaan martida ugu yareer barnaamijka uu Anas Maxamed yahay iyo Suhuur Cabdallah Yuusuf inay ka qayb qaataan barnaamijka waxaan doonayaa Suhuur inay barnaamijka ugu soo dhaweeyo habareer welcome to the program. Thank you for this program. Okay Suhuur maanta maxaad noo akhrinaysaa horta masjid baad adigu how old are you? 10 years old ma sha Allah maxaad noo akhrinaysaa habo alif baadka Soomaaliga Soomaaliga haye waa lagu daawanaya siida ba ta ja ha ka da ra sa sha da a ga fa ka ra sa na ma wahay haya ما شاء الله ياكو برهبر Mothers International Mother International باكو برسمها انت برنيس how old انت how many years do you برين less than 4 years 4 years برنيس ما شاء الله aad baan kugu mahad celinaya hadaba ana sabani marka loo leeyahay barnaamijka doorka haweenka waxtarka dumarka waa inay yar Soomaaliyeed oo daayar soo aragtaan ana so how old are you 9 years old ما شاء الله habaryar magacaaguna waa magace Anas Kabres Anas Abdulghani Mohammed Ma'anis Abdulghani Mohammed okay and so what you gonna say today what you gonna sing for us sing a song in Somali or English inshallah it will cross down qabso hay sida bismillah I'm from Somalia but I was born in England I can still smell Somalia 1,000 miles away come on انت صنبا more okay say more we got a new government but he's new we need help for money education and hospital that's it Masha that's it thank you very much thank you for letting me on the show thank you very much Allah thank you aad baan ku salaamaya daawadayaal barnaamijka doorka haweenka waxtarka dumarka waxaan kala socotaan waa TV-ga caalamiga Somali Channel labada dhalinyaro da'deer baan horta ugu horeysay barnaamijka insha Allah ta'ala oo iska fadhiisanayaan aad baan mahadsantahay bar fadhiista behind the scene imika waxaan guda galaynaa barnaamijka xoogiisa insha Allah ta'ala طبعا wada garanaa dhaqan baan leenahay hideen leenahay dhamaanteen wada jecelnahay hidee dhaqankeena laakiin waxaan jecelahay dub inaan u soo cusboonaysiyo ama dadku ay ogaadaan hidee dhaqanka leenahay maanta halka waxyaabo fara badan oo qurux badan baa habluhu sharaxayaan waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka doorka haweenka waxtarka dumarka qaali beerlula قال كسر برامج كدور كوين كي واحد قدمك ولا لا وما تصنتها أمال برنامج كان سيدا شرفت بدن نوجو مرتقادي وانكا قدومينا وانا كاجم هالعلنينا أدي أدمك وجمع العلنية بل هذا واحد اللي بتاع شجر
dalbaas kusoo dhawaa shukri aad baan kugu mahadcelinaa sida quruxda iyo qiimaha aad barnaamijka ugu soo qayb qaadatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Amaal waan salaameynaa TV-ga Somali Channel markasta barnaamijyada uu sii daayo especially adiga waan ku mahadcelinaynaa. aad baan kugu mahadcelinayaa سعدية الشيخ موسى ويدنا قبل إحنا برامج كدور كوين كقاعدين سعون طفي عنا كانوا سكر سياراتي رير أو ضل هي. السلام عليكم وحنيكم سلامكم مسلكة أمالكيس أدب مصنطة ولا وحويان Somali Channel أدبان ودور كهوينك أو وفرح سنة برنامج شدة سوسي ديسيد إن شاء الله تعالى وحي كلام فاهين دونا إن شاء الله تعالى. نقول محمد أو دمانتين بوضع قرنا يسوي برامج كدور كوينك برامج بدنا القيرة يقال قيد قاعدتهم هذه اللي كسروا برامج كلها المعاني. السلام عليكم أمالكاسي أدب ما تصنطاي أدي أديان برنامج كاغا وجعلناي مركز تناد كسوقات دور كوينك قالين لبح Somali كان على أد بيان وما تصنطاي دمانتين بومد Somali ملك تيجوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة محمود وطبعا يضنا برامج كدور كوينك واحترق قبل بحكي قاعتي ان Somali Mother International قيب حوق لك هيسا جيدة مقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكيسة يو بهذا Somali Channel كل جيم بوادين سلامة يا انت وحن إذن لا يهوانا تكون هتسنتين عسمات نوع عسنتين استوديها أنا وآه Somali Mothers International and الله ندينك أجر سيء. آمين يا ميكروفونك هذا بيسو. هذا بضع وضيع البرامج كان طبعا هبلها وضع ركتان برامج كمان تيجلا قيب قاعدنا إن شاء الله تعالى تيجلا قيب قاعدنا يعني فرشح عن كم فربضنا ما أنت لصورة هدي دقن كين الصوماليات ما أنت لصورة من دول بمجلس الشيء جيا ده دوم بمشي على ما شاء الله إلا عنتدي بطلوا داون إنسان وحن دوني بالهذا قالي وحن دوني بالهذا بس اللي أكل شرح يا رابطن إن شاء الله تعالى نهريا اللي بهربنا يعني تذكر على إنه إذا عقاب for example horta amaalkaysa intaan barnagaraanka aanan guda gelin waa in dadweynaha Soomaaliyeed martida sharafta leh Somali Mothers meesha martida ku ah waa in dadweynaha loo bandhigaa meeshaan horta waxa waaye waxa fadhiya gudoomiyaha ururka Somali Mothers International Association Shukri Dalbaas waxa fadhiya afhayeenka labaad ee ururka Somali Mothers International Saadiya Sheekh Muuse waxa fadhiya Luul Barre oo ah afhayeenka ururka Somali Mothers International waxa fadhiya xogeyaha guud ee maaliyadda فاطمة محمود يعني أنا قال بيرلول أو قدوميها قد قفلنتها وين كقرنك ما شاء الله أدي بقالي كلها لأن سبب ضمان الحقيقة هذا بقالي وحن دوننا إن ويديو شجري عربتن ديش أنا محيط محل وقت ديشان وديش عانها إن أنتي لعله عانها الوصل الشبه أما أرجعها هاتو أما جيلها هاتو مركا إن عانها أنتي لا عله أنا لو شبع المها لو كورنجري سوماليا ما شاء الله وان قلت لهم كواديشي إن وهذا يقول بضطي إن تن وأبو وحلو قاطع مركي سفر كلا جلاية بيها أبو وأبو بيها لو قاطع سفر بعديها ها وبراشد ديو كله وبعر لقلجي لقل ديزاين كاس اللي بسميه ما شاء الله لشرحي معناها وهي إن عانها مدان وعانها ويل كل ليهين بهاشان وحي كتميت أصل كذا أوريجينال كذا بعيدة برشنتا وبركنتا بركنتنا وبركن إن وحا بركض والوسح ذا كذا هو استدري باديها كسحدة ما شاء الله واي بل هذا واحد ودي بس سعدية ودي بينا يدنا سعدية بل دوت إلى قرن سعرابتون وكل تنوع مفيق وش قرنية قولي له محا قبل شرتي waxa laga isticmaali jiray Soomaaliya oo dhan siiba maxaa la yiraahdaa gobolka Muqdisho waxa mafiiq waxa xaqin waqooyin mafiiq bay yiraahdaan mafiiq sax laakiin xaq xaqin waan gartay kana waa durmaankii oo isaga dhisaankiisa yar yahay durmaankii guriga sometimes guriga waa lagu sharaxaa sometimes guriga waa lagu sharaxaa waana lagu tuntaa marka buraanburka ama sayliciga waxyaabo badan oo hidiya dhaqanka Soomaalidu u leeyihiin waan gartay aad baan kugu mahadcelinayaa bal waxaan tusayaa haye luul kana waa iska easy marxabad waa babiski oo la isku babiyaa waan gartay marna waa sharaxaad oo guriyaan ku sharaxana ma sha Allah marna dabkan ku babisanayo markii ugu horeeyay ugu horeyntii dabka kan lagu babiyo way
وان قرت halka waxa yaala bahal aad iyo aad u cajiib culus kana wada hay alla waxa bay soo xasuusisay maalkiisii bariga aan dubi jiray iskuulka markaan hooyaday Allah hadaystay laxooxda loo dubi iskuulka markaan aadi jiray ayaa wax la idhi jiray naakaco laxooxda ilmaha u dub markaas aan babis yar inta qaato anoo hurdaysan oo subaxii shaatiga iskuulkiina waan diyaar ban iska dhigaya ayaan marka tibaad soo xasuusisay marka kale waa kii laxooxda lagu dubi jiray waa daawo maxaa la yiraahdaa magaciisa bir canjeelo iyo dadku soo daawo anagu daawo loo yaqaan waana ka gabadhii rasmiga ahayd oo ugu horeysay Soomaaliya oo sidii dhaqanka lagu qaatay halkan cuntada xagga aan u bedelo cuntada waa badan tahay ma sha Allah waxaan ku weydiinaa Faaduma bal aduguna halkan kulli alaabtu way fara badan tahay ma sha Allah kanaan ku deynaa noo sheegtid oo iska macruuf la wada garanayo amaalkaysa kan waa dabqaad waxaa lagu shitaa uunsiga luudaanta sida loo yaqaanaba waan gartay dabkana dariska waa looga soo qaataa Soomaaliya markii la joogo qaaradii Afrika oo Soomaali ah oo aqal Soomaaligi uu ku sawiran yahay waa farshaxanka ay ku hormartay Soomaaliya inay gacanteeda ku samaysato in u iibgeyso wadamada dariska Afrika ka iibsadaan oo gurigeena ku wallahi bilaa cajiib aan sheekadan maanta qurux kana baliga sheekay alaabtan maxay tahay alaabtan dizaanka qurux badan yaa sheegaya waa ubadii oo si kale loo waxeeyay marna waxa laga dhigaa buun oo waxa marka la dheelaya kabeebeyda iyo ayaa afka la saaraa oo buubu lagu dhahaa sidii Soomaalida u yaqaanaan marna biyaha lagu qaataa marka la safraayo ma sha Allah waxaan soo celinayaa bal qaali halkan marata Allah oo ragga Soomaaliyeed xidhaan macawis baan ku naqaanaa macawis maxaa tan loo yaqaanaa baashan waxa waaye dhaqan bay u leeyihiin raggeena Soomaaliyeed maalintii markay shaqooyinka ka yimaadaan ayay guryahooda ku joogaan waxa la yiraahdaa macawis waxana caan ku ah raggeena Soomaaliyeed aad iyo aad rag Soomaaliyeed kuma xidhaa macawis waxay xidhaan baswaal iyo waayo markii qurbaha la joogo tootaha qabowga ka gashtaan laakiin wadankeena marka la joogo galabtii markuu duhurkii qadeeyo shaqada ka yimaada baashas buu xirtaa nafis istariixun ku helaa ma sha Allah aad iyo xagga cuntada soo galayna insha Allah taala waxaan doonayaa bal alaabtan ku jirta anigana ay sheegtaan ku dheedahay taay maxay tahay alaabta waxa waaye waa digir digirta waxa waaye cunto Soomaali waaye waa digirteeni oo la kariyay cuntadan kale halkan ku jirtani waa qamadi iyo digir la isku kariyay waa cambuule iyadana ka dhigan tahay halka waxa saaran oo kale soorteeni oo hiday dhaqanka aanu lahayn saacadeen u dhiibay hadda mikrofoonka Soomaali channel insha Allah taala qayb libaxid ka qaadanaysa barnaamijka oo inoo ka sheekeynaysa alaabta cajiibka ee saxfaraanka lagu soo kariyay maxay tahay laxoox amaalkiisa waxa weeyaan laxoox sida aan u naqaanana waxa weeyaan canjeero marka Soomaali hadda arinta gobolka Awdal ku sicaan dheer tahayna waxa weeyaan cambaburka maxaa lagu darayaa cambaburka waxa lagu cunaa gobolka Awdal wuxuu ka soo ungomay Saylac boqortooyadii Adal waxa liya lagu cuni jiray Awdalna way lagu cunaa hadda marka caanaha dhanaan waxaan samaysanaa ciidaha special ciidaha يا marka laxoodan waxay cambaabkan wuxuu ku yacaan maalinta ciida la maalinka ciida iyo kana lagu dara ha iyo maalinka qofka aad jeceshid oo special aad u jeceshid yaa loo sameeyaa markasta maaha ma sha Allah halkan waxa taala muqmadi baa taala muqmada waxa weeyaan waxa caan reer Awdal baa ku leh waxa weeyaan sidii Sayid Abdullah Xasan Berigu yimid Saylac waxa wuxuu muqmadan baa lagu soo dhaweeyay markii lagu soo dhaweeyay hilbo qurux badan Awdal baale xeerada marka aroosyada xeerada waxyaabo badan buuleynta qofka hada umul ama haduu qofka xanuunsanayo waxyaabaha lagu buuleeyo ayay caan ku yihiin halkan bunki baa ku jira qaaliye bal bunkana sheeg walaal halkan waxa ku jiro ma bunki baa halkan waxa ku jiro bunka alaabtan ku jirta quraanka bunka wada waa bunki samaha bunki waa ku jira bunka waxa waaye waa waxyaabaha aan u leenahay dhaqanka aan u leenahay markii oo Soomaali oo meel la isugu yimaado ama dii kale qofka haweeneyda dumarka ah ay uurka leedahay ee loo sameeynayo madax shubo kale oo isla markaas dumarka isku yimaadaan ayaa bunkaas iyo cambuulada markii saan oo kale loo sameeyo ayaa bunka kor looga shubaa waa waxaan hidday dhaqan u leenahay bunka koobabkaasna waxa waaye koobabkan sida dhiilaha ayaa la qoraa
hidaha dhaqanka shaaha iyo caanaha iyo waxaas baa lagu cabaa waa geed waa koob qori waay كل يمكن cid ku cabta ma jirto laakiin way fiican waa lagu cabaa mana jaban waa lagu cabaa aniga waxa ma jeclahaybo galabtii inaan ku shubto on qac kasi markaas u dhidid iga yimaadaan shaah macaan inaan cuno dareemaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa daawadayaal barnaamijka doorka haweenka waxtarka dumarka maanta waxaynu kaga hadlaynaa dhaqanka waxaa soo quruxda badan la hablaha qaranka Soomaaliyeed ee Mother International baa soo abaabulay insha Allah tacaala oo dhamaantood isku duuban wada fadhiya waxaynu galeynaa imkan insha Allah tacaala kulli wax walba dhaqan beeleen kulli imka waxay tiri qaali waxay shaaban ku cabaa hadaan ku cabin baxaar ma yeelanayo aad baan ugu mahadcelinayaa wali alaabta ma rabaa inaan dadka sii tusnaan u sharaxdaan kale kan waa ha shukri waa maxay hayteen saqaf miya waa fargeetada okay fargeetadii waa baasada yani oo sooma la qoray alaabtu waa badatay ma sha Allah kan waxa waaye faldana la yiraahdaa fandal bunka iyo ha bahashaanu leeyahay warqada asaaratay kanka ma sha Allah kan marka labadan baa la isku qabtaa miya kan iyo kan maxaa lagu sameeyaa marka maxaa lagu sameeyaa bunka lagu shubaa qaadadan oo lagu soo guraa waan gartay midkaas waa mid kaasna waa mid kana baliisha haray alaabta maxay dacas miya mise waa dacas dadkii hore ay xiran jireen oo laga sameeyay waxa laga sameeyay shaaga gawaadhida ha ma sha Allah waxa haray shareero baashan waxa la yiraahdaa shareero talaqma halo garaha musiga kabankii waxa imika soo baxay tii ka horeysay waa wixii ka horeeyay awees khamiisa sameyn jiray alaabta ma sha Allah awees khamiis baan gaashaankiina waa kan baashan waxa lagu ritaa unsiga ma sha Allah unsiga waxa lagu ritaa iyo catarka iyo halka nimka shandadaha lagu rido ha aad baan ugu mahadcelinayaa shukri dalbaas oo iyaduna qayb wax barnaamijka doorka haweenka waxtarka dumarka insha Allah tacaala ka qaadatay waxaan doonayaa imika maxaa haray inuu sheegin insha Allah tacaala tan waxaan sheegay maxaa haray waan dhamaysnay insha Allah maya dheelihi ma la sheegay dheeli waa la sheegay dheesha qoran kana waa maxay kan waxa waaye geela ayaa koortiisa waaye marka geela macnaha markuu luma xataa geela hadaad u jeedin markuu dhaqdhaqaaqo markuu yiraaho meeshu ku sugan waa dareemi kartaa marna xaraga uu yahay ma sha Allah luul baa haysa alaab qurux badan luul iyo sheeg sawir ka sheekay sawirkan waa gabadh Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu caan baxday oo beautiful qaadatay caanihii iyo waxay caanihii koob ku shubaysaa ma sha Allah dhiishi aad bay gabadha ugu quruxda badan adduunka weeye calanka Soomaaliyeedna waad arkaysi ma sha aad baan kugu mahadcelinayaa sawir baa ka dambeeyay shukri sawirkan intii taqaana Soomaaliya waxyaalihii oo taariikhda ugu badnaa uu kamid yahay wuxuu ku yaalaa dekadii Soomaaliya horteeda xaafada Cabdicasiis waa xaafada Cabdicasiis waan gartaa alaabta ay caanka ku tahay ma sha Allah aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xaafada Cabdicasiisna intii garanaysa halkana waa dambil miya alaabta iga sheekay dambiisha makeup-ka alaabta lagu rito ما دواتا هدي dhaqankii hore Soomaaliyeed aad buu qurux badnaa kana waxa traa waa feeradii kaawidi way elbo marka masas lagu kaawadan jiray dab la gelimsa dab lagu guri jiray dabka intii la kululeeyo alla kormariya dharka يا سلام الدنيا maanta ku wada jirnaa artificial baynu ku nool nahay artificial baynu ku nool nahay xaqiiqdi marka loo noqdo dhaqankii uu fiican yahay aad qurux badan waxaan siinayaa yaa ka hadlaya kale waxaan rabaa maadaama aan ka hadlayno hidaha iyo dhaqanka waxaan ku caanahay gabay uu leeyahay jirto halkaas gabay aan ku dhufanaya marka waxa waaye geedooda xalaya godaniyo hangool waa waxa dhulkeena u gaaro hoynaynagu garta maantay galadinoo soo gashay gobanimadayada guulowadka gabar guutad caanoga jadu karayn waa waxa dhulkeena u gaaryahoynaynagu garta maantay galadinoo soo gashay gobanimadayada guulowadka الله يعزك الله يعزك قالي وقف نول والله بالله ماشي joogtana way noolaynaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qaali waxaan u soo gudbayaa saacidi gambarada baan rabnaa noo sharaxdin kasto gambaradu idin ka dheer yihiin la gaadhay
كان هو دربانك باترادين دربانك هو واتانو شرحنا isagoo weyn halkan iska halka kuraas waxa ana soo qaad iska fadhi adigu ka dheer tahay koona waa gambadhada haye noo sharax gambadhadan quruxda badan lama Soomaali lagu sameeyay ma sha Allah quruxda bay ugu darhay gambadhadan waxa weeyaan Soomaalida ayaa hidiyo dhaqan u leh waxa weeyaan waxa laga sameeyay saanta xoolaha ya salaam iyo qoryaheena iyo la qoray waa la sharxay dhaqankeeni waxa way caan baan ku nahay waxa loo geeyay loo iib geyn jiray wadamada dariska aan nahay sida Kenya sida Ethiopia ma sha Allah والله wax ajiiba waxaad iga sheekaysaa kala xabad ba alaab baalkan ii taala iyaduna daf oo kala dafka waxa lagu ciyaari jiray sharax ciyaaraha marka laga garaacayo alaabaha waqooyina waxa laga ciyaaraa dafka waa la tuntaa liilalowda wallahi Allah aad iyo aad baan ugu mahadcelinahay hablaha maanta quruxda badan ee barnaamijka doorka haweenka igala qayb qaadanay daawadayaal insha Allah tacaala waxaanu galeynaa khadka telefoonada bal hadaba dadkii nagala qayb qaadanaa telefoonada ay nagu soo iyaguna bal inagu darlaa wax halkana waxa tiri waa alaabtiisu tumaayay ma sha Allah way daawadayaal barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka dumarka waxaad kala socotaan TV-ga caalamiga Soomaali channel waana barnaamijkii doorka haweenka iyo waxtarka dumarka ee la xagal beedin soo galin jiray insha Allah tacaala ma waxbaan ilaahay hablow dambiish baan ilaahay ma sha Allah dambiishas waxa waaye waa dambiishii suuqa lagu aadi jiray oo subaxdii qudrada iyo qadada iyo lagu raadi jiray xusuus bay mudan tahay wixii sameeyeen عمر دار الله سيء قبل ما أوصل سيد قال لي دمبيش وما جعلنا هو جنسينا بيكوتال واكاس وادماتك الله يعزك الله يعزك خلكي تلفون قال لي نايم إن شاء الله تعالى هلو مانكو سلام يا والكوسر برامجك مقعاقة هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمقعاقة ولا المقعيقة waxa la yiraahdaa Nasra Ali waxaan ka soo hadlayaa London Nasra ku soo dhaw barnaamijka maxaad gala qayb qaadan leed walaalo amaan aad iyo aad baan walaalku salaamaya barnaamijka quruxda badan ee daadahaynayso ma sha Allah Allah yaciisaka haye maxaad ku daray adiga iyo gabdhaha quruxda badan ee meesha soo fadhiya Allah yaciisaka ku wada maqlayaan haye marka walaal waxaan leeyahay Saadiya waxaad ilowday Saadiya Surbiyaankii ay reesel iyo raacawdan ay caanka ku ahaayeen Surbiyaanka insha Allah taala haye inaad soo dhigtay heed meesha aad iyo aad ma insha Allah Surbiyaanka iidaba إيدينو كنا سربيان كأد بنقول ما أدري سعدي عنصر سعدي صوصة ما يسوي هي التلفون كلا حلو. أنا أديك أنا ولا الأد بنكون سلام يا دمش. أدنى أد بنكون سلام يا أد ما صنت حبيت معانا تلفونك حاجة خدك حاجة إن شاء الله تعالى هلو. هلو. خدك حاجة هلو. هلو. وانكو سلام يا والمقعة. ولا ينفع قالوا ولا المقدسة قالوا سهاد ليا. هكذا شوفت ولا لا؟ مقدسة ما شاء الله. هرجيسة. هاي ما حد قال قيب قاضي البرامج كحبت معاني ولا لأن نكون هذا إنه كان قيب قاضي لها برنامج وحنا هذا يا سعدي شاف موسى هي ما شاء الله هي ولا وحن أسودوين يا عم بعد كائن يا دربيسة استعمالها بان ما غير أيضا كدقل مقاعد هرقيشة هو هي لأنها عيد أنه استعماله ما شاء الله ما شاء الله ما أنت أبلو سلام يا جماعة كلها أدينا نوكو سلامي والهبلا كلا قرن كنكو سلامي ولا المعاني أد بنو مهد عليا خدك حاجة هلو السلام عليكم هلو تليفوننا أنا كوجو ديتنا داود البرامج كدور كوين كمان تو هدية دقن كي ما أنت قف كي ما أنت سؤال تليفون كصادرنا سؤال بوديني دقن كاكو صعب صن وكجوابي هلو السلام عليكم هلو نوكو سلامي مقعة هلو نوكو مقلة ولا مقعة ولا waxaa la yiraahdaa Maryan Gaaba la yiraahdaa magaalada Geneva ka soo hadla Geneva ka soo hadlaysa Maryan ku soo dhaweynaya walaal maxaad barnaamijka gala qayb qaadanayad khayr Allah ku siiyo walaalo ma sha Allah gabdhaha horta koo adna ku salaamaya gabdhaha meesha joogana waa salaamaya ma sha Allah ay ku wada salaamayaan dhamaantood bahaye idii dhaqanka aad ba u jeclaa horta aniga Allah يعزك مدام هدية دقنك تعيش سؤال بقى كوجو سؤال لو ويدينا يا مانتا إنك صاد ملا كده واضح قرنا يسوى فهم يساي كان كويدين محي سؤال اللي تهاي بقى كان محل قصة ما هدات كان اللي يسوي مريم أي بقى كان محو قبتها ما قرنا يسابالك كامدو الله وبرتي عن جيران داخل قراني ما شاء الله حسوس بكم محسوس بما وبرتي عن جيران دد كان حمر كي ما برتي عن جيران صبح والبا لي يوتو بجنو هيدي
ما شاء الله ما شاء الله aad baan kugu mahad celin maadaama aad jeceshay hidiyo dhaqankaad birtiina garatay laxda lagu dibay aad baan ku salaamay reer Jilifan salaan gaar aan u diray anoo amalkaysa iyo barnaamijka doorka haweenka aad baan ku salaamay walaalo waxaan ku guda jirnaa wali maanta hidiyo dhaqankii maanta farimo qodna hadii xaqiiqdii la maanta inaan ka hadalno hidiyo dhaqanku mid dhamaanaya maaha waxaanu iloownay safiiranka saxraa haye yaa ka sheekeynay luul awrkii baan iloownay dhamaa ee wax lagu wada jiray luulay asida qaali adigu haye awrka waxa waaye waa ratigeeni oo isla markaas nirigtii yareed ay nuugaysa waaye ma sha Allah marka waxa waaye waa kaas adduunka dhanba baa kan haya ma sha Allah aad baan kugu mahadnaa telefoon ku soo noqon halo waa ku shirna waa galina kaana haye halo salaamu calaykum عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمقعد مشت كاد ليسد والله لما خايد وحلا لذا عمل بلد راح يصل إماراتك أمل يا إمارات aad baan ku salaamaya amal ku soo barnaamijka xabiibta haye maxaad gala qaad qaadan leed والله البرنامج aad baan ugu faraxsanahay waana barnaamij aan jecelnahay oo ku xisaabtano waqtigiisana aan su'aal maxay diyaar ku noqono meesha qolka lagu daawanayo waan naasita dhamaantii way salaamay walaal amal waan ku mahad celinaya xabiibti qalbi aad baan ku salaamay reer imaaraatna aad baan u salaamaya waxaan doonayaa bal kulli waad garanaysaa alaabtan amal aad ya qaran garanayo jira qaran garanayno way jirtaa haye tan ma garanaysaa imka gacanta ku hayo waan garanayaa dhiishaas maxay heeday gurigayga Soomaaliya Hargeysa aan ka yimi ma garanaysaa meel baan oo sunnaa jirto aanan ku shuma jirnay ya salaam waxa jiye marka waa idin dhaqankii aad loogu caanka waa dhiishi soo maaha ha laakiin maxay waxaan doonayaa labada caruur xagga soo fadhiisay soo istaajisay English ku hadlaayeen Soomaaliga la baro gabayasha Soomaaliga la baro ayaan ka jeclaan lahayn aad waxaan baleynaa insha Allah soo qoraan waad mahadsantahay walaal macaan insha Allah waa inay wadan ku dhashay intaas baa cajiib laakiin dhaqankii waa laakiin af Soomaaliga waa wayga wacdina insha Allah tacaala diin soo saaray suuq af Soomaali ku gabiyaaya aad iyo gabadha sidaas Ingiriiska ugu hadlaysay laakiin Soomaaliga la baray ma sha Allah Soomaaliga waa mahuraan wayna baranaa aad baan ugu celinaya amal ugu mahad celinaya imaaraadka waxaan doonayaa shukri way haysay alaab bayno haysay shukri alaabtan maxay tan lownay maxay hayteen dabka lagu shidaa ma sha Allah baadiyaha dabka ku shitaan khatar markii qoryaha maaragtay la shido dhuxusha babis ayaga ma haystaan markaa bahashaan ay haystaan ay samaysteen ku shidaan marka Soomaaliya oo dhan way taqaanaa waa la yaqaanaa marka waa caan farsamada gacanta ka mid tahay Allah yacizak Allah yacizak halkana waxay alaaba ay taala marka kuwana lama sheegin sheegay ay luule alaabta ugu muhiimsan ee lagu feerin jiray shalooyinka quruxda badan tan waa midii berigii aan yaraa ma aragta tan waa midii aan asalka iyo dhaqanka aan u lahayn oo weliga Allah markaan isticmaali jiray timaaska markay dhigi jiray markaan Yurub imidna dee jareer bay noqdeen oo isku dhageen midana waay hadaan ku samaysan lahaa dee mar hore kala daadan lahaayeen Allah yacizak Allah yacizak Allah yacizak taasna waa ka faa'iido ku mahad celinaya lul barnaamijkan ku soo noqonaya qayb telefoon kale alo salaam calaykum halo assalaamu calaykum waan ku salaamaya walaal macaani magacaaga meesha joogtay adoo mahadsan ii sheeg waxaan joogaa magaalada Sheffield cariga Ingiriiska magacaygana waxa la yiraahdaa Farxiyo Jaamac Bade Farxiyo ay ku soo dhaw barnaamijka doorka haweenka waxtarka dumarka wal maxaad maanta kala qayb qaadanay xabiibti والله waxaan kala qayb qaadanayaa in aad baan horta ugu faraxsanahay hidiya dhaqankan iyo hablaha wanaagsan ee meesha soo fadhiya Allah yacizak haye laakiin bal saruqad awlka baashay ku sheegayeen makaas aha awlka saruqad tuuda la jaqayo waaniga u qaada waa ka soo kama sheegisid ha laakiin waan ka xumahay saraad u qaaday mar hore inan baa la weydiiyay waxay tiri waa awlkii oo nirigi jaqayso waxaan u sheegayaa inaanu awr nirigi jaqayso inay tahay hal nirigi jaqayso ma sha Allah saabka u tuma sax waa ka maanta adaa noo sheegay hadaba waxaan doonayaa dadka telefoonada xitaa in nasaxaan baan doonayaa marka aad baad noo saxday aad u saxday luul qudheedu waa iska qurbaa wadankan ku kortay in badan ma laha daway kalunta kelmadaas aad baan kugu mahad celinaa xaliif inay soo bartaan waxaan jecelahay xabiibtiyay in maxay ahayd marka waxa si sax loo saxo in dadkuna si sax u baranayaan laakiin hadii awr baan nirigi jaqaysaa how come possible thank you very much aad baan kugu mahad celinayaa hal ma gasho khadka xigaan eegana insha Allah taala halo salaamu calaykum aad baan kugu mahad celinaya wala mar labaad halo salaamu calaykum waan ku salaamayaa ninkii ugu horeeyay aabbe Soomaaliyeed magaca وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا نفسي لو كلام السلام يا aad baan ku salaamaya wala meeshad ka hadlaysaa magacaaga adoo mahadsan
walaal cabdirasaaq baa layidhaha hargeysa kasoo hadlaya. cabdirasaaq oo aad baan kuu soo dhaweynayay reer hargeysa dhammaantoodba walaalo maxaad barnaamijka kala qayb qaaday adoo aad u mahadsan maanta ka hadlin hidiya dhaqanka. walaal waad mahadsantihiin macnaha dadka dee wixii ay fahamsanay kitaabku baan jooga inaad fahamsiisaan waa loo baahan yahay laakiin kolley macnaha hadda islaantii ka baxday maxay ahayd khadkii ugu horreysay kelmadayda lahayd aan doonayay inaan idin idhaahdo. halo ha cabdirasaaq aad ku jirta khadka walaalo. marka anigoo ku raacsan hooyadii aniga igu horreysay kelmaday lahayd waxaan jeclaan lahaa inaan idin idhaahdo marka aad doonaysaan hidiya dhaqanka inaad dadka aad ka dhaadhicisaan waxaa loo baahan yahay marka hore wixii aad gacanta ku haysaan idinku inaad fahantaan magacyadiisa iyo waxaa si macnaha dadka dee aad oga dhaadhicisaan. aad iyo aad baan cabdirasaaq kuu salaamaya waxaan ku weydiinaya adigaan su-aal ku weydiinaya haddaba hidiya dhaqanka maadaama aad joogtid somaliland magaalada hargeysa waxaan doonayaa bal inaad taa ka jawaabtid taa maxaad u taqaana adigu. waa gar si fiican ma arkaysaa. kulley de haddaba ha taa gacanta aan ku tusa ama bahashaaba taa ma garanaysa cabdirasaaqo. waa kulley de kamanka waxaan la tubay kulley oyno gacanteen sax 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 waad mahadsantahay cabdirasaaqo kolley waayo arag baatay waddankiina waa joog laakiin walaalay ha cabdirasaaq taa iyo kuwani isku mid ma aha waxa weeyaan aad bay u kala fog yihiin hadda waxaad soo saartay hal ay nirigi jaqayso ayaad soo saartay hablaha marka waxaad isku waafaqdeen ood ku wada dhawaaqdeen inuu awr yahay ayaad wada tidhahdeen ma garatay magahaye sax usax haddaba adaa dhaqankii awr tirahdaan markaad awr tirahdaan idinkiyo dhalinyaradii yaryareed ee furkaha joogteen wax ka dhaadhicinayseen iyo idinku isku mid ayaad noqonaysaan bay ka dhigan tahay markaa. cabdirasaaq hal lagu maqlay walaalo waxa la kala faa'iidaystaa waxaan waa hidiya dhaqan dadkana Yurub in badan ku raageen marka haddii adigu aad shay garanaysid bal imika aadaan ku weydiinana gabadha horna way sheegtay bal codkaaga si fiican loo maqlay ninkii ugu horreeyna telefoon ka soo qayb qaataatee si fiican ugu dhawaaq maxaad oran lahayd. walaal macnaha sawirka TV-ga dhexdiisa ka muuqda waxa weeyaan waa hal niri ay jaqayso hal qabshayga la oranayaa oo niri ay jaqayso ama ay dhaacayso. waan gartay laakiin haddaad tidaahdaan waa awr nirigi ay dhaarigayso markaa waxay noqonaysaa dee macnaha hidiya dhaqankii oo waxay noqonaysaa dee haydaan dadkii haydaan macnaha meel lagaga dhacaya bay noqonaysaa dabcan waan ku haysanaa raalina maya aad baad u mahadsantasaa barnaamijka waxaan maanta ugu talagalay in la kala faa'iidaysto habluhu hadday xabad la qaldana kuwa soo hadlaya inay saxaan baan ugu talagalay aad baanan kugu mahadcelinaya cabdirasaaq oo barnaamijka uga soo qayb qaatay doorka haweenka waxtarka dumarkaba inaka weli ku jirnaa khadkii telefoonada insha allahu tacaala kana hore waa u sheegta waa dabqaad somayn oran yalla qaldam limkan islaaliya baa ku hidiya dhaqan ciyaar ma galo loo sheegay khadka xiga neegna insha allahu tacaala halo assalaamu calaykum. wacalaykum assalaam wala codka kor iyo qaad macaani magacaaga. xabiiba la yiraahdo waxaan ka soo hadlaa London. xabiiba ku soo dhaw barnaamijka doorka haweenka waxtarka dumarka wal macaani maxaad kala qayb qaadan lahayd xabiiba. walaalo waa ku salaamay adiga iyo aqyaarta kula joogta. allah yacizak haye. aad baan ugu faraxsanahay hidiya dhaqanka aad noo keenteen halkeedsa ka keenteen anagu waa rabi lahayn inaan aqalada ku sharxane. maasha allah xabiibay aan ku warramo horte barnaamij ka hor oo doorka haweenkan soo daayo magaalada Dubai aan ku sameeyay waxaa joogta gabadh aad iyo aad waxay hooyo xaawo ahayd ma ilaawi kale sida fiican ee barnaamijka ay kala qayb qaadatay gabadhaas waa gabadh Soomaaliyeed waxay ku nooshay dalka Dubai bay ku nooshahay xaawo la yiraahdaa waa gabadha gurigeeda oo dhan hidiya dhaqan ku samaysa ilaa fareemadii bay samaysay ilaa kaarbidkii bay samaysay ilaa koobkii bay samaysay maharajaan Dubai ka dhacay 3 sano ka horna way ka qayb gashay waa gabadhii ugu horreysay laga doortay markaa imaaraadka ee la soo farshaxanka Soomaaliga iyo hidiya dhaqanka Soomaaliyeed ku caan baxday xaawo la yiraahdaa waan haya waxay samaysay cajalad video ban ka insha Allah tacaala dib baan ku soo celin doonaa bar hore TV kale ka sii daayay laakiin waa gabadha ugu haysata marka idinka la weydiinay su'aalahan halkeedna alaaban ka soo urursan kale qaarada ba tagtay dhiishan July baan Muqdisho tagayo alla mid baan hooyaday ku arko de way hagaagsanayd oo ma soo qaadan karin haye birta canjeelada un baan soo qaatay waa gartay sax aad baan u jeclahay aad iyo aad baan ku jecelnahay xabiibay aad baan kugu mahadcelinaa sad barnaamijka uga soo qayb qaadatay alaabtan kulli xamar iyo Soomaaliland iyo meel walba taala Soomaaliyeed waan hidiya dhaqankeeni wishin aan barano aan jeclaano aniga qudhow wax badan maanta faa'iiday aanan runtii xaqiiqdii aanan garanayn laga yaabo inaan ka ku qaldamay laakiin maan arag xaqiiqdii laakiin dadkan maanta hablahan ii jooga ii sharaxay aad baan ugu mahadcelinayaa wax badan baan ka faa'iidnay qadka xiga insha Allah tacaala halo
cuntada baynu gelinay mar dhawan halo halo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga magacayga xabiibo waaye mii gudbisa gabdhaha walaal xaliim waan ku dhagaysanaynaa siida maxaad haysaa halkaad joogtaa marka hore asalaamu calaykum abaay waa ku mahadsantihiin horta waa maxaa waxaan qurux aad meesha noogu soo bandhigteen allah yaciisak xabiib adaa ka qurux badan intaba haye xaliimo maasha allah switzerland baan jooga abaaya haye switzerland maasha aad baan u salaamay reer switzerland maxaad ugu darsanayd xaliimo walaalo waan ku faraxsanahay aan ku iri qalabkeena meesha yaal caawe maanta qalabkeena meesha yaalo haye su-aal lagu weydiina hadduu qalabkeeni maanta meesha yaalo alaabta maxaa u taqaanaa xaliimo itusay horta waxaa iga yaabshay he hashi ii nirigta maaragtay qofka yiri maxuu ahaye tooda waxaa waaye masculine iyo feminine ismuuga ayay tiri haye maanta arrin baa ka taagan homework bay noqotay maanta homework bay noqotay kun waa dhameynay homework waan ka baxnay marka su-aasha ku weydiiyay bahasha ma taqaana gacanta ku hayay xaliimo do you know this xaliimo taa ma taqaanaa ha ma waxaad ii sheegay maxay qarsinka maxaa la dhahdaa qarsin aa la yidhaha qarsin waa saxanta aad baan kugu mahad celinayaa soomaaligii baa hadda mirge oo lahajadii baa sii kala baxbaxay insha allahu tacala xaliima aad baan kuu salaamayaa كل إيد بفود نقصه هاي السيد الأضحى مركه هراء إلهي سبحانه وتعالى هلك وحن ودو عيني حجاجتي إلهي سبحانه وتعالى برنا وحلو تاجي عيد العرفة إلهي وحن كبر يا حجاجته إنه إلهي سبحانه وتعالى وقد حج مبروك وسعي مشكور يكون نبض قبضتكو دي هالو دكوسو نقدر إن شاء الله حج كودنا كأقبله oo yom al-arafa maalinta isniinta inuu noo soo duceeyay wixii dhibaato muslimiinta ku dhacday ilaahay dhibaatada ka qaado xajka maanta dad badan oo dhibaato haysata ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciid al-adha ka dhigo ciideena ku wada nasanay dhibaatada ku wada ilaaweynay dhibaatadana kaga baxaynay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigo xajun maqbuul wa sa'yun mashkuur ciid al-adha foodeen ugu soo hayso insha Allah ta'ala inuu ciideena foodeen ugu soo hayso oo maanta maxaydun Soomaali hadaynu nahay oo wadan joogno qurba oo dhaqan iyo hidde aan leenahay alaabtana maanta ku soo sharxnay Suudiga Soomaali channel barnaamijka doorka haweenka maalinta ciida inuu baaqig u soo dhigayno cadaanka liftiisa ka dhaadhici weyne hidde dhaqan baan leenahay ka fiican boqolkiiba alaabta dhalaalka haya qaali hadduu Allah awooda la hadduu masaabaxo programka ay wadaan Somali Mothers International Association yom al-ciid waxay ku talagaleen inay barnaamijyo hidde iyo dhaqan leh ilmihii ay Somali Mothers International Association ay wax bareen oo hadda fursadda maanta aan uga faa'iiday weynay hadduu alla raali ka noqdo maalinka ciidda ah inaan ilmihii afkii Soomaaliga si fiican ugu hadlaayo ayagoo quraankii ku hadlaayo ayagoo hidde iyo dhaqankii xiran iyo alaabo intaan ka badan iyo miisaska waaweyn ee fursad ka badan maalinka ciidda sameyn doona hadduu alla raali ka noqdo سعدية ولي واحد لو بقي عن بابك لو بقي بل هذا واحد ما وقش هيك صار له سمية عن بابك رنتا وناكسين لبرتاع في عنه لو قادو حلقة سمية عرفت وحلقة سمية سيد الله يقان حرور هذا كونفور كشيء مسكو ها وحلقة سمية وحلقة درا هرودة وحلقة درا طون وحلقة درا بصل وحلقة درا حبسوت وحلقة درا قمون waxaa soo dhan baad isku geynaysaa waad dhanaaninaysaa xoog intaad u garaacdid sida indhahaaga wac soo yiraahdaan bahal cambaabur yaa markaas ayaad dubaysaa markaad dubtid maaqla kale waxaad bir kale dhiganaysaa waad ku shiilaysaa subag yaro saxayn oo udgoon iyo saliid aad isku dartay ayaad ku daraysaa dusha haddana waxaad kaga daadinaysaa sonkor ya salaam caanihi dhanaana lagama sheekeyn karo taa lagama sheekeyn karo hadhow ku cafinteena dambeena kiyo dadka maanta nasiibkooda cuni doona waxaan doonayaa bar hadaba halkan maxay tiraahdaa alaabtan maxay digirta cambuulada ka sheekeynaya cambuulada sharaxaya beerlula siida bal cambuur loo sharax cambuula markii lagu yiraahdo saddex nooc bay u qaybsantaa ma sha Allah siida horta waxay noqon kartaa maxay ahayd galeyda iyo digirta markii la isku daro cambuulo bay noqotaa salbukada cagaarka ah markii la kariyana cambuulay noqotaa haddii qamadiga iyo diirta la isku daro cambuulay noqotaa digirta keligeed haddii la karina cambuulay noqotaa laakiin dhinaca dhaqanka Soomaaliya wuu fara badan yahay waqooyiga kale markay masagada ay kariyaan garoway dhahaan annagana cambuulo lay noo tahay marka cambuulo waa waxaas dhan markii la kariyo ee biyo lagu kariyo cambuulo waa waxaa lagu cunaa subag qofkii rabo ku cuni karaa qofkii raba caano ku shuban karaa qaar nasleed macsaray ku cuni karaan
had qof kasto alaabtan kala maxay alaabtaas waxa waaye waa soorteeni soorta ka sheekaysa loo kariyaa soorta waxa loo kariyaa sida cambuulada kale waa wixii biyo lagu kariyo dhan oo cusbeer lagu daro soorta waxa loo kariyaa maxay ahayd cusbe iyo biyo leewaay waa la horiyaa waxaana lagu cunaa maraq hadii kale waxa lagu cunaa spinach hadii kale wax kasta lagu cunaa way ya sharaxay muqmada ama muqbada anaga waa ma sharaxi karnaa inkastoo dhaqanka xaqan ay saacadiya noo qabatay hay saacadiya marka sheekay hadaba anaga dhaqan u leeyahay maadaama ay sharaxday ha thank you muqmada Soomaaliya oo dhan horta lagu isticmaalaa laakiin waxay caan ku tahay waqooyi fujaanada koonfur fujaanada ma yaqaanaan shaashaar xagga anaga todobadaan ka bixino iyaga waa shaashaar ma fahantay ha ya marka waxa weeyaan muqbada fujaanka lagu xirayaa marka fujaanka lagu xiro timirti baa lagu dhisayaa amaalay waad garanaysaa malaha marka sidii inanta ayaa aroosadii iyo kale ayaa la sameyn jiray hadda inkastoo diintii badatay oo laga daayay dhisidii taashkii loo xirayay kabii loo xirayay wixii laga daayay waxa caadi baa loo xiraa dhaqanka wax faa'iido badan way leedahay ha faa'iido badan waxa weeyaan talabaad waxay faa'iido badan ku leedahay inantu markay umusha tahay waa loo geeyaa marka qofka xanuunsanayo kale waa lagu buuleeyaa marka faa'iido badan bay leedahay aad iyo aad u badan hal wax anaga waxaan nirahnaa oodka waan oga anaga runtii shaashaarka reer xamarka cadcad saarta maxaa la dhahaa oodkaca baadii waa laga keenaa waxa lagu keeni jiray dhiilo waaweyn haaman waaweyn lagu keeni jiray markii dadka dhibaata iyo waxaas idinka waxa waaye waxaad tiraahdeen bahashi maxaa la dhahaa xeerada anaka dhibaata markii la sameynayo gabadha waxaa loo keenaa bahashiyo buuxda dhiishiyo buuxda oo la soo camirin laakiin sideedii iyadoo ah lagu soo shubo loo keenaa baadiyaha intii laga keeno so nice waa jeclaan jiray subanka sixinka markii lagu sameeyo waa cuni jiray runtii inkasta aan hilib nacabanaa laakiin markii dambe markaan bartana hadda dhareerkaaba iga daadanaya meeshaan oga jeedo hadda waxaan doontaa insha Allah haddaba daawadayaal waxaan waa dhabaad barnaamij idinku wada mahad celinaya dhamaantiin idinku isku duuban daawadayaal maanta barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka dumarka waa inuu maanta hidaa kaga hadlaynay insha Allah taala waxay ugu martay hay'ad shukri dalbaas oo dhamaantiin ba wada garanaysaan doorka haweenkana qabiil wax ka qaatay qaali beerula oo iyaduna aan ka sheekeyn kara idinka indhiidin macallin yihiin luul maxamed iyo saacdiye sheekh muuse iyaduna iyo faadmo maxamuud iyo anigu amaalkaysa insha Allah taala iyo inamada yaraayna keeda anis maxamed iyo suhuur cabdulla yuusuf oo labaduba qabiil wax ka qaatay iyo kamarada xagga kamarada maxamed yar khayr Allah siiyo waa anigu amaalkaysa idin kulli caam wa antum bikhair wa ciid mubaarak ilahayna sanadkiisa bashbash barwaaqayn u gaarsiyo intii telefoonada soo dirto wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh